waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war inninku dadkii wanaagsanaa ee masaajida camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya nin odayaa yiri oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeenii maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhib baa ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana innika isgaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay quradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saaw qarqaraya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaaraha ziyaarada waana qanay u kaadiyo buuri qolkii buu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqadaha ee suufiyadu barigoor reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaataan malayn ba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartiisa qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartiisa ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaa wuxuu wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maanaba arkay buu la yaab bay ku noqotay muqt khamrigan halkan ay taala jamaacadan halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraad annaku jamaacad waxaan martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiinta ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wal nafs bil maali naftaydi maalkayaan ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii uu fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedahay waligii ma maqal buuri waligii wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag waad igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaan inaad jamaacad u tagto soo salaantid bas intaas ka rabnaa ma intaas waa raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la socdo shaadkii uu jamaacada u soo raacay wuxuu salaad ma aqaan waxa waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo sameey salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo soo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muuzir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay yaa soo gashay la in yahdi allah bika rajulan wahida khayrun laka min humri na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal khaybar buu nabigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nabigu ka daba hadlo wuxuu ali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi la sideeda ay ka noqonayaan markaa buu nabigu cali dhagaysa buu ka yidhi mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyagoona lala dagaalamin ay diintii kaa dhagaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanaya ogow dacwa muqaddam calaa kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadii waxay yidhahdeen war annagu ma soo geline ilaahay baa soo geliyay daaya salaadii maqrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay bay miskiidkii keenaan
haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socdo masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisi baa timidoo ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali al-jannati fayadkhuluha wa fi hadith nabi qula inta taakayn leeg markay naarta uga hadho ayaa ilaahay jalla wa ala qadarkii hore ugu qorna ayaa la hormarinay dadna acmaasha jannada loo weecin toddoba maalmood buu cibaadaystay sidaa baa la rajin ilaahay jannada ku galiyo laana qaatimad bay ilaahu hagaaji husn al-khatima wa shay ghaliya annaka jamaa bari annako khaarijina wadanada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray 40 kilometer waa buuqanay in odayo daadiisa ku qiyaasay dhowr iyo 60 jir markaas weeyaa jamaacad halkee ka timid xagga ayo dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib وخرجك يا نجا بحيا بالمال والنفس وفيزها ودن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادمن أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانيمك ده جماعات دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين تهنو مسكيت حد ما تجاوب حد مالما كلنا صلاة دايدنا إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما joogtaan waa xada ha waa niima guudi dalkii Soomaaliya warkiisa rabaay Soomaaliya hay kale Soomaaliya warkiisa waa lagu siinaa Soomaaliya islaamnimadan u socono ugu muuqatee afka Soomaaliga u xiiseynaya hayna mari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii ay istuhudeen dadka Soomaalidu markii istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas warmarkii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa weey علاقة بين الدول مركز وكير حرير كهذه إلهي نقدر حما برتا مركز ولمي صلاة يدبوا قلب مركز حرير كهذه إلهي نقدر حما برتا مركز ولمي بروفيسور هذا جامعة ده نيدقة حرير كهذه إلهي نقدر حما كهلان يكو ما يقانان مركز سالقول محمد برن بالقولي حديث كان ماذا مقال النبي يقول هي أعمار أمتي ما بين 60 و70 عمر الغالب كأمت يدبو النبي يقول وتضباطني لحدن انت أودا حيسا أذكر واحد لا دوري لحدن جربانا هي انتهت سنو لندن تابو كيدي صلاة ديدين واحد لا وقلب حرير كأذي له نقد حيانا والضعيف كون وحكو دقنا وحات الحرير كما بيقانان سدي كرة هايبو كيدي أو عقلك أجي رشد أجي هذا الكثير بسيط يا جماعة بوتري لكن منكي حبيك عشاء بركوتو كذا قريجي يسيبو تجي صلاة دي فجر يسقوا علابتي وتو جماعة دوي مدي وعود هذا الكاد يقول ترى هذا محلك سيحن كروايين هذا الكاد حل يقول ترى هذا وأكجيب سكر وايين داعية مركون نقول ضد وناكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناك كفي كريو هذا القيس إلهي وحوق لنا يا تأثير سامين بو هذا الكاغو يالنا يا هذا سو إصلاحا يا أمدن إصلاحك كسو قيب قادنا إسا قيلة عن قيل إنه كبت بعد إنه يين دين تكوض الشقين ودن نيود إن شاء الله وهذه لنا قد البين دين تأبحنا فانبحينا وإذا استنفرتم فانفروا بنبي هبيك الجماعة هنا مركز كسو قيب قالك كلن كدينات بفضل الله عز وجل هبيك إنه تجمعه بان وفير صدو مساجد أبو حسام يا بهديته له زماننا تعودوا waxay soo martay xilliha
jamaacadu miskiidka markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwaddu waxay maraysaa in maraakiistii halkaa ay joogsato afka oo ijtimaacyadii markii la yidhi halkan baa lagu qaban 2 sano kadib meeshii yaraatay meel kale loo guuray meeshii way yaraatay hadda annaga Djibouti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaacii u horeeyay 92 200 qof ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaaci miskiidka markii lagu qabtay magaaladii dhexda xidhantay miskiid kale weyn bay dawladdu ku deeqday dacwadii haddana kiina uu xidhmay kiina waa laga baxay bannaankii magaalada loo baxay bannaankii magaaladana sanadkan 40,000 qof ka soo qayb gashay ijtimaaci 40,000 qof hargeysana waad ogtihiin war khayrka baa inoo baxay khayrka ma ku darsanaa khayr hada dhagaysta diinada wanaagsan noqo shaqaale diinada wanaagsan ba ka sii fiican الله ينقف الله ينودم الدافع وصلى الله على سيدنا محمد